wuxuu ku diyaariyay magaalada Hargeysa shirkan jaraa'id qabteen mas'uuliyiinta ugu sareysa xisbiga mucaaradka wixid ayaa xukuumadda u hogaamiyay madaxweyne Silaayo ay sheegeen in dalka Soomaaliland ay soo wajahday xaalad cakiran waa sida ay hadalka u dhigeen musharaxa madaxweynaha xisbiga wixid aqoon Jamaal Ali Xuseen oo isagoo waran ka hadlay shirka jaraa'id ayaa waxa uu sharci darro ku tilmaamay cashuur dhawaan xukuumadda Soomaaliland ay doonayso inay ku kordhiso xoolaha iyo gaadiidka wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Xaaji Cali uu gudbiyay mudanayaasha aqalka wakiilada haddii aynu ka hadalno arrinka cashuuruhu waxa weeyaan wax kala ma aha arrinka cashuuruhu haddaad eegtid waxa la kordhiyay waxa la yidhi xoolaha nool $1 ayaa lagu kordhinayaa ariga geela $5 baa lagu kordhinayaa lo'dana $4 per head waxa la yidhi baabuurta waaweyn $5 calaa tan adigu markaan calculate gareeyay waxay noqonaysaa lacag $480 ah oo dheeraad ah de $22 ee wadamarista maxaa lagu qabtay marka hore wadooyinkeena way idinka arkay maanta wadamarisna waa la yiri de wadamaris ma aha alla maartay lacagtaasi meel ay tagtay anigu garanayno dadkeenu marka ay arkaan cashuurtooda wax loogu qabtay ay wax bixiyaan tan maanta golaha wakiilada la hor dhigay laga doodayo waa arrin xasaasiya arrin la qaadan karayo maaha shicibka Soomaaliland waxaan leenahay arrinkaasi waa in laga gelgisho golaha wakiiladana waxaan leenahay dumadiina ay saarantay arrinkaasi haddii ay aqbashaan wax taariikhda idinku gala ay noqonaysaa xildhibaan Maxamed Faarax Qabiile oo kamid ah mudanayaasha aqalka wakiilada ayaa isaguna daboolka ka qaaday inay xildhibaanada golaha wakiilada ay wadaan mooshin ka dhana in madaxweyne Silaayo la hor keeno golaha wakiilada Soomaaliland si wax looga weydiiyo xaaladda murugsan ee dalka soo wajahday mooshinda waan ay soo jeediyaan golaha wakiiladu oo ay cuskanayaan qodobada 39 53 faqradiisa koowaad labaad lixaad toddobaad 50 iyo afraad iyo constitutionka qodobkiisa 14 waxa weeye waxa aanu rajaynaynaa in goluhu si wacan ugu guuleystay Axmed Maxamuud Silaayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu hor keeno golaha wakiilada si wax laga weydiiyo gudashada xilkiisa madaxweynenimo waxa weeye haddii golaha wakiiladu u yeedhi kari waayo oo uu taa yeeli waayo madaxweyne Axmed Maxamuud Silaayo in wixii gudashada xilkiisa khuseeyo loogu yeedhi kari waayo waxaanu uga gudbi doonaa 27 xildhibaan oo dhiga impeachment xilka lagaga xayoobinayo gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka kooxda Injineer Faysal Cali Waraabe ayaa isaguna waxa uu carabka ku adkeeyay in Soomaaliland ku jirto go'doon siyaasadeed dalkan go'doon baa laga dhigay international community waynaga go'satay waqtiga Ingiriiska inta gacantii naga waday inoo marxaatiga ah doorashooyinka inala sameeyay inay markaan isqabsanayno soo gurmanay 6 points ka naga qabtay iyo maanta waa ka muufada ku cunaya xamar waynaga go'satay madaxweyne xilkiisa uu wareejiyay madaxweyne ku xigeenka waxa loo sameeyay inagu manhiisa Mareykanka madaxweyne xigeenkiisa wuxuu sugaa inuu madaxweynahaas ma ku dhamaado inuu isa chance helo uu qaato sharax marka shadow of the president hada ku jira laakiin inaga madaxweyne ku xigeenka waxa weeye power sharing maanta madaxweynuhu awoodiisi wuxuu u wareejiyay waa unconstitutional dad aan la dooran baan wareejiyo reeyta ugu sheeg qaraabo xilkaas wuxuu saaran yahay baarlamaanka oo koow lagu qaado maxay Silaayo xidhashada la'aan magaasay gud in awoodii qarankii uu qabtay oo dhaartay anu waxaan leeyahay madax Axmed Silaayo 3 jeer buu constitutionka jabiyay 3 waa impeachment ayuu ku waajisay riyaal mar baynu impeachment lagu sameeyo wuxuu ka tagay oo qura diiwaangelintii baa warninka xilkiisii maanta ilaahay baan isku dhaariyay madaxweyne ku xigeenkeeni ma isweydiisay idinta kala duwan loo soo jeediyay xukuumadda uu hogaamiyay madaxweyne Axmed Silaayo ayaa waxa uu ku soo beegmay